السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسودوا صاحب يال كورس كيني أكو برينين سوفتوير كلو يقان كويك بوكسكا إن شاء الله ما أنت 10 كين وحكساب سنة دونا مو حاكلين 10 كين وأنت لو جيدا ياكلين هاي وجيدا كواد وحيت هاي إن أنا أورنو كمبيني عصب أوكي كمبيني أو أنا هرنا وصل بس نينا ربنا إن أكو أحسن منه كويك بوكسكا وحقوق قرانا كمبينيال فربضان إن أكو رح أورتو إسلها الكمبيوتر adigu computerkaaga haysato ama laptopkaaga haysato ayaa waxaa awood u leedahay inaad ku samayso ilaa 20 konton ilaa wax tira aan lahayn oo kambaniyada inaad ku samayso waxay kuu suurtagelinaysaa markii aad u shaqaynaysid kuwan inaad shirkadda kambanigooda aad soo kacsato marka kuwan aad u shaqaynaysid kambanigooda aad soo kacsato kambani marka abuureen macnaheedu ma aha inaad kambani suuq aad ka sameeyeen maaha laakiin kambani suuq diyaarsan ama dukaan ama meel maqaayad ah arabna inaan ku dhex abuurno computerkeena ku dhex abuurayna marka waxaa la rabaa kambaniga marka abuurayno xogta dukaanka dhan ama xogta kambaniga abuurayna dhan inaa quick books ka gelin rabna okay dadka iskale ganacsigaas nooca uu yahay lacagta alaabada dhan hadhow waxaas dhan waa gelin doonaa laakiin maanta ujeedkeena kood wuxuu yahay inaan abuurno kambani abuurno tan labaadna waxay tahay overview inaan ku sameyno dashboardka markii quick book oo soo kaco يعني شاشة هوري عربنا إن overview أنكو سمعنا أما يعني وحي كلا قبنا يعني شقوي كودا أين كلا تصل مركو كسر ولا 10 كنا أوكي مركو هوري سوق عسى كوي بوك سنة وسوق عدونا أنا هذا هالكان وحا يوجرو كمبنيال بدن أوكي مقعدو يوجرو كمبنيال شادون وا كمبنيال إسميسن يعني أو wax ku braadikeeyo ama si kala u isticmaalo okay adiga marka waxaad rabtaa inaad kambani cusub abuurto meeshaan hoos waxa kaaga muuqdo create new company ama open or restore an existing company oo kugu jiro computerkaaga inaad soo kaciso ama inaad furato sample file company oo sample inaad furato yani aad aragto xogtiisa waxaas dhan aniga waxaan rabnaa waxay tahay inaan dhahno create a new company cusub inaan sameynaa rabnaa halkan su'aal uu ku weydiinaya wuxuu ku leeyahay who are you creating the company file for yaa abuuraysaa loo company u sameynaysaa hadii aad adiga sameysanaysid for myself yaa dooranaysaa okay hadii qof kale uu abuurayso oo ama shirkad kale uu sameynayso waxa leedahay for someone else qof kale uu sameynaya okay marka waxaan rabnaa anaga sameysano waxaan oo dooraysaa for myself okay I am admin adiga ayaa okay start set up leedahay وجهنا كوكين دونا ماشي وكرس waxaa ku qoran business name magaca company-ga ina meesha ingilisa laga rabaa marka meelaha laga waxaan dhan waajib ma hayna u buuxiso meelaha laga rabo waxay tahay meelaha xidigta garuudka ay saaranta okay magaca company-ga loo baahan yahay company industry-ga ku jiro industry waxa loo yaqaanaa filliga ganacsiga ugu jirno okay tusaalaha hadii aan bangi aan nahay بنكنا دورنا هذه telecommunication أكشن telecommunication دورنا industry جناح مركل وقاحة industry ورشة معها ماشى ومطال okay industry جناح مركل جوا حلو خانة group of companies with same or similar products يبيعوا خانة okay أم similar service بحية telecommunication أو ذاقنا okay أم construction أو ذاقنا اسمها okay اسمها كشغينا أم telecommunication كشغينا أم e-commerce واي أنا حسياش online كشغينا أم retail وتفارق لي وحساس اللي خانة industry meeshaan waxaa door doonaa business type okay marka aad ka buuxsano meeshaan waxaan qoraynaa company magaciisa qoraynaa anaga qor doono okay magaca oo akademiyada oo bixinayna okay samlime okay industry meeshaan waxaa laga rabaa inaad doorato industry okay industry waa sida hore aan kuu sheegay waxa waaye filliga ku jirto marka anaga waxaan dooraynaa يعني دكان يريس وتفاريق للجدا سمعنا أوكي وحدنا ريتيل أوكي يعني دكان أو تفاريق أوكي ريتيل شوب أما أونلاين أما كوميرس أوكي جناس أونلاين أما تفاريق لي أسكن أوكي بيزنس تايب كان وحال أنت ماشي أنا فرنسا أوكي أساسه بحدهم وحياة كجوردن أوكي لكن هذه واحد من قريش ماشي أنا فرنسا أنت أنا كوسو بحد جناحسي هذا نوع واي أوكي sole proprietorship waxa waaye ganacsi oo hal qof uu leeyahay dukaankaaga hadii adiga kaliya aad leedahay oo qof kale oo wax ku leeyahay sole proprietorship aad dooranaysaa okay partnership waxa loo jeedaa ganacsi ka dhaxeeya laba qof
iyo wix ka badan. Okay, ganacsigan haddaa shirka qof aa kula tahay meeshaana dooranaysaa. Single member LLC waxay u taagan tahay limited liability companies. Okay, so waa company dad fara badan ay leeyihiin. So kuwan Soomaali ma laga isticmaalo LLC gan iyo corporation S corporation kuwaas Soomaali ma laga isticmaalo. Company oo saas ah corporation in la helo waa laga yaabaa Soomaaliya laakiin LLC ga ku jiro. Okay, halkan haddii dukaankaaga uu yahay ama yani ganacsigaaga non profit uu yahay ama tusaalahaan charity oo kaleeto kuwa oo maxaa lahaa dadka oo sadaqada ka shaqeyso ama wax oo aad ganacsi faa'iido aadan ka rabin. Okay, loo yaqaana non profit. Okay, anaga waxaa dooran doonaa partnership dukaan oo anaga 2 qof leedahay ama 3 qof ka dhaxeeya dooranana. Okay, halkani email waxay gelinaysaa email been wax gelin kartaa muhiim ah. Okay, marka aan emailkeen gelinayaa okay, email marka aad geliso intaan aad sameyso meelahan kala dhan waa iska dhaaf kartaa. Phone number waa iska dhaaf kartaa sababtoo ah xidig guud ma saarno. laakiin email please iska dhaaf kari, ganacsi type ma iska dhaaf kari. bal maxaa dhacaya haddii ganacsi type ka iska dhaaf ama emailka okay, tusaalaan emailkan iyo koobiyey iska dhaaf. Okay, meeshaan socokir. Okay, create company haddaa dhahayo yani active maahan laakiin haddaa meeshaan email aan geliyo okay, basti usoo dheh waxay noqotay buluug ay noqotay. Okay, يعني هراء وصعصع كرتا meelahan oo dhan waa buuxi kartaa adaartu waa iska dhaaf kartaa. addresska businesskaaga waa geli kartaa, numberkaaga waa geli kartaa, magaalada zip code-ka gobolka ama wadanka anaga Soomaaliya inta ku jirto ana dad ka fiiriyay marka waxaa iska dooranaysaa other meel ay qoran tahay. Okay, ama iska dhaaf muhiim ma ku aan buuxan. Okay, create company la ku dhuf bas. Okay, uu wareegsanayaa company-geena uu noo abuuraya. Okay, hadda company-geeni uu noo abuuray. halkan hadda uu jeedo waxa ku qoran magaca company-geena. Okay, hadhow company kale hadda soo furto meeshaan magaca ka fiirinaysaa. Okay, waxaan rabnaa marka ujeedkeen labaad ee casharka wuxuu ahaa inaan overview ku sameeyno dashboard-ka. si aan dashboard-ka waxa loo yaqaanaa markii QuickBooks aan company u sameyso yani shaashadan ka soo bixaysa waxa loo yaqaanaa dashboard. Okay, kuwan waxa loo yaqaanaa icons. Okay, home ka soo bilaw ilaa ay customers inta ku jirto waxa loo yaqaanaa icons. Okay, file ka bilaw ilaa ay special offer meesha qoran tahay intaasina waxa loo yaqaanaa menu. Okay, menu. Okay, meeshaan imaaw dashboard-kan asina wuxuu u qaybsamaa 5 qaybood u qaybsamaa. Okay, waa qaybtan iyo qaybtaas. Okay, marka qayb u sharxayna halkan waxaa keenaysaa wax kasto oo vendor u baahan tahay. vendor waxa loo yaqaanaa yani supplier. Okay, ama qofka wax ka soo iibsanaysid. Okay, haddii inventory aad soo iibsanaysid yani waxa supply ama vendor ku saabsan oo meeshaan aad keenaysaa. halkan waxaa keenaysaa wax kasto ku saabsan customers waxaa loo yaqaanaa macaamiisha adiga wax ka iibsado. Okay, vendors waxaa loo yaqaanaa dadka adiga wax ka soo iibsanaysid. halkan hoose waxa uu jira employee. Okay, shaqaalaha halkan ka maamulaysaa. halkan waxaa ka maamulaysaa company-gaaga. Okay, yani chart of accounts ko kaleeto yani wax kasto company ku saabsan inta ka heli kartaa. halkan ugu hooseyso waxaa keenaysaa banking. Okay, yani markaa qoraysid oo kaleeto check markaa qoraysid markii record deposit sameynaysid inta ka sameynaysaa. Okay, inta waxay ahayd home page-keed. haddii aan ku dhufan inside-ka ku dhufan. Okay, inside markaa ku dhufan saana ku soo baxay waxaa ku ogaan kartaa expense-yaashaada yani meesha iyadoo qaab graph ah. hadda ani maadaama company-geena uu yahay company hadda awoodna expense wax dhan ay gelin eber way. Okay, laakiin hadhow markii company-gaaga aad kiciso oo yani xogtaada dhan soo geliso oo sales aad sameyso yani wax aad iibiso qarashaad aad iska bixiso meesha waxaa ku aragtaa expense-gaaga oo qaab jaarta loo muujinayo si uu kala weyn yihiin yani si adhowti decision aad u qaadato. Okay, marka reports-ka waxaan rabnaa inaan ogaano reports-keena. Okay, reports ku dhufo company and financial ku dhufo kadib balance sheet standard waa kana. Okay, meeshaana balance sheet laga tagaa kuwii report-ka tagaysaa kadib waxaa ku dhufanaysaa company and financial qaybta hoos waxaa ku qoran balance sheet standard ku dhuf balance sheet-keena. waxaa soo bixi doona company-geena magaciisa balance sheet asset-keena inuu eber yahay, liability-geena eber yahay, equity-geena eber noqonaa haddii asset-keena oo eber yahay. Okay, waxaan rabnaa income statement-geena. Okay, inaan ogaano reports aad tagaysaa waxaa kasii dooraysaa company and financial
meeshan wuxuu u yaqaanaa profit and loss standard. Okay, profit and loss standard QuickBooks waxaa leeyahay wadanka Mareykanka laga leeyahay. Marka Mareykanka income statement ma dhahaan waxay dhahaan profit and loss standard. waana isku mid kale yani income statement waxa qabanay yani profit kaaga ama revenue waa wuxuu ku jiraa expense intana revenue waxa lagu dhahaa profit and loss waxa lagu dhahaa expense and loss u baxshista. Okay, marka ku dhufano waa ujeedaa net income kan inuu zero yahay يعني wax revenue min soo galin wax expense min bixin waxaan waa zero zero company hadda abuun halkaas waxaan u eg cashirkeeni ugu horeeyay aan ku baranaynay labadii ujeedo ay ahayd inaan company abuuri karno iyo tan labaad oo ahay inaan overview ka bixino dashboardka. marka insha Allah waa maasantihiin. fadlan haddii aad muuqaalka dhamaysatay waxaan si sharaf leh kaaga codsanayaa inaad muuqaalkan like saarto. waa Cabdi Baasit Xasan Nuur oo idin leh adoo dhaxal reebi kara waa noqon inta aad tabin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.